dadka Soomaaliyeed waxa ay muddo dhibanayaal u ahaayeen systemka dawliga ah iyo qabqablayaal lagu sii daray kooxo manaxayaala waxa ayna warbaahintu ahayd codka kaliya ay isticmaalaan marka ay duruufaha adag wajahayaan haddii maanta la isku dayo in warbaahinta la aamusiyo oo aan aaminsanahay inaysan dhici waxaan cambaaraynaynaa xariga qaatay muddada ka badan 24 saacadood ee uu u xiran yahay Khadar Cabdiraxiin oo ahaa agaasimo ku-xigeenka telefishinka Himilo waxaana loo sheegay in loo haysto warbixino uu ka sameeyay dhibaatada ay barakicinta ay ka cabanayaan dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku dhaqan warbaahintu waxay u taagan tahay in ay xaqiijiso codka dadka dhibanayaasha ah iyo inay garab istaagto dadkaasi sidii ay cadaalad u heli lahaayeen waxa ay muujinaysaa beegsiga lagu hayo saxafiyiinta sida dawladda Soomaaliya aysan ugu dulqaadan karin in ay dhageysato cabashada dadkeeda iyo dadka tabanaya xuquuqda ka maqan sidii loo heli lahaa waxay wariyaashu isugu yimaadeen inay arrintaasi cambaareeyaan ayna dalbadaan in si degdeg ah loo sii daayo Khadar Cabdiraxiin agaasimo ku-xigeenkii telefishinka Himilo Somali TV oo maalinimadii shalay si sharci darro ah loo xiray laamaha ammaankuna ay dalbanayaan in la fasaxayo haddii laga saaro muuqaalada uu soo duubay ee ku jira TV-ga arrintaasi oo dhaawac ku ah xorriyadda hadalka iyo xiriirka ka dhaxeeya bulshada iyo warbaahinta dadka Soomaaliyeed waxa ay muddo dhibanayaal u ahaayeen systemka dawliga ah iyo qabqablayaal lagu sii daray kooxo manaxayaala waxa ayna warbaahintu ahayd codka kaliya ay isticmaalaan marka ay duruufaha adag wajahayaan haddii maanta la isku dayo in warbaahinta la aamusiyo oo aan aaminsanahay inaysan dhici karin in la aamusiyo waxa ay horseedi kartaa in dalkan uu cagaha la galo dhibaatooyin hor leh iyo khalalaase sababi kara in dadka Soomaaliyeed ay kala yaacaan bahda warbaahinta waxay maanta halkan ugu kulmeen xariga sharci darrada muddada 24 saac qaatay ee lagu la kacay agaasimo ku-xigeenka TV-ga Himilo waa wax runtii aad looga xumaado inay soo noqnoqonayso arinta ah in mar kasta la xirayo wariyaha waa codka shacabka waana awoodda kaliya isku xirta madaxda dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed shacabku haddii ay dhibaataysan yihiin qofka kaliya codkooda qaadi kara waa wariyaha dawladda Soomaaliyeed waxaa qalad ku ah maalin walba in wariyo la geynayo xabsiga guryahooda lagala baxayo haddana waxaa ceeb weyn ah in iyaga oo warbaahintoodii iyo shaqooyinkoodii caadiga ah haysto lagu weeraro xarumahooda isla markaana lagala baxo waliba si sharci darro ah waxaan halkan isku nimaanay inaan si adag u cambaareeno xariga loo geystay agaasinka Himilo Somali TV oo kamid ah xarumaha madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho xarigan wariyaasha wuxuu ku soo aadayaa xilli dawladda Soomaaliya u dabaaldegayso in xuquuq aadanaha ama xuquuq insaanka arrimahaas heer laga gaaray baarlamaanka shalay wuxuu meel mariyay xeerarkaasi xuquuq insaanka marka arrintan waxay noqonaysaa tacaddi waxaan leenahay hay'adaha dawladda Soomaaliya xarigan iyo cagjuuleynta warbaahinta ee la kulmayso marnaba ma joojin doonaan shaqada iyo waajibaadka suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaan leenahay arrintan aad uga xunnahay waan cambaareynaa waxaan u soo jeedinaynaa dawladda Soomaaliya inay ilaaliso xeerarka caalamiga ee la ansixiyay oo ay ka mid noqdeen waxaan codkeena markale ku biirinaynaa in la soo daayo ama xorriyadda ay helaan wariyaasha xiran madaxda warbaahinta iyo tiftiraashan waxaan leenahay waa in la ilaaliyaa xuquuqda isoo kale dhexdhexaadka warbaahinta isoo kale akhlaaqiyaadka saxaafadda mar kale waxaan si aad u cambaareynaa xariga loo geystay wariyaasha ka howlgala Himilo Somali TV saxaafaddu sideeda waxay indho u tahay bulshada sidoo kalena haddii saxaafadda la aamusiyo waxay noqonaysaa bulshada oo la aamusiyey marka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha amniga in ay xaq dhowraan wariyaasha waayo waxay indho u yihiin bulshada xariga agaasinka guud Himilo TV dabcan waxa uu qayb ka yahay waxyaabaha lagula kaco saxaafadda xorta ah wariyuhu wuxuu xaq u leeyahay in uu wax tabiyo haddii ashtako laga muujinayo waxa uu tabinayana waxaa jirto meel loo soo maro laakiin wariye aan warqad waaran loo soo jirin ama aanan lagu soo wargelin in la iska xiro ama xarun laga qabto waa wax aan sharciga saxaafadda caalamiga uusan qabin
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan isugu nimid anigoo ah saxafiyiintii ka howlgalayay warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho sidii aan kaga dhiidhi lahayn isla markaana codkeena ugu taageeri lahayn in si bilaa shuruuda loogu sii daayo maamulkii warbaahinta Himilo Somali TV oo 24 saac wax ka badan ku xiran meesha aan ka hadlayna meel aan ka fogeyn runtii sababta loo xiray agaasinkii guud ayaa la xiray ee TV-ga hadda agaasimihii ayaa la sii daayay saacado ka hor sababaha uu noo sheegay in loo xirana waxay ahayd in yacni laga dalbaday inay ka saaraan muuqaallo dad cabanaya oo dholalkoodii laga barakiciyey oo TV-gu uu baahiyey waxyaabaha sida gaarka loogu xiro waxaa ka mid ah muuqaalkii ugu dambeeyey ee baahay saacadihii la soo dhaafa kaasi oo ahaa suuqa Siinay oo dawladdu ay ku wareejisay jiingado dad jajabinaya oo jiingadihii duminaya lama soo qaban dadkii jiingadaha duminayay laakiin waxaa la xiray oo xabsi loo taxaabay dadkii warbaahinta ahaa ee soo tabiya dhacdada meesha ka dhacaysay runtii warbaahinta Soomaaliyeed ama wariyaasha Soomaaliyeed waa codka dadka aan codka lahayn sida aan ognahay caqabad ay ku shaqeeyaan dawladdu xilliga ay garabka uga baahan tahay bilaa shuruud ay ula shaqeeyaan haddana marka ay dantooda ka waayaan oo ay sidii ay rabeen si aan ahayn ay wax u tabiyaan dhibaatay ku sameeyaan runtii sida aan aragno waana wax in badan soo noqnoqday sida daraadeed waxaan codsanaynaa in si bilaa shuruud loo sii daayo agaasimo ku-xigeenka Himilo Somali TV ee hadda naga xiran بسم الله الرحمن الرحيم waxaan mahad celinayaa dhammaan bahda warbaahinta madaxa bannaan ee halkan isugu timid xariga sharci darrada ah ee shalay lagula kacay agaasinka guud ee TV-ga Himilo ugu horeeyo agaasimaha guud ee telefishinka agaasime Axmed Maxamed Aadan Jubba oo markii dambe la soo daayay iyo agaasimo ku-xigeenka guud ee telefishinka agaasime Qadar Cabdiraxiin Ibraahim oo ilaa iyo hadda isagana xiran shalay waxaa saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir looga yeeray labadoodaba laakiin ka hor waxa ka horeeyay agaasimo Jubba oo loo yeeray kadib markii uu saldhigga tagayna la weydiistay in uu keeno wariyihii qaaday wareysiyadii dadka danta yar ee masaakiinta ahaa ee ay dawladdu sheegeen in dhulalka ka dumisay oo waliba guryo aanan ahayn guryahooda jooga ugu tagay baahiyahooda baahiyay si dadka Soomaaliyeed ugu yaraan ay wax u weydiistaan ugu dambeyn agaasime Qadar waa loogu yeeray isagana saldhigga halkaas markii uu tagayna waxa loo sheegay inuu xarig yahay oo labadoodaba ay xarig yihiin ilaa iyo hadda 4 saac shalay ilaa iyo hadda qoyskiisa lama hadal markii ay meesha tageenna telefoonadii waa laga qaaday meel wuxuu ku xiran yahay xaaladeeda Ilaahay og yahay oo caafimaadka aanan u haboonayn haddana xilliga lagu jiro ay tahay xilli kuleela ah agaasimo Jubba oo la soo daayay markii xarunta uu nagu yimid waxyaabaha uu noo sheegay waxaa kamid ah oo la yaab kale haddii aad rabtiin in la idin daayo ama agaasimo Qadar la daayo waxaa ka saartaan muuqaaladii dadka danta yar ee masaakiinta ahaa ay ugu adeegayseen ee ay u baahiseen ee shacabka Soomaaliyeed ay u tusinayseen ka saara xoriyadiisa waa la siinayaa shaqadiisu dib ugu laabana marka dawladdu waxaa xusid mudan madaxweynuhu inta aan la dooran waagiisi mucaaradka in garab uu na weydiisanay xitaa shakhsiyadiisa markii shirarka laga baxo oo dawladdii sida weyn ugu dhaliilsanaa banaanka loo yimaado uu warbaahinta ahaan wariyaal ahaan noo sheegay in xilliga kursiga uu yimaado ama xitaa qof iyaga kamid ah kursigu u soo baxo saxaafadda inay xorta ilaa hadduu sheega villada uu fadhiyo xorriyadul qowlka qofka cid caburin karto ma lahan madaxweynaha isaga afkiisa ka dhaho waxaan ka been sheegayna ma ahan isagoo intaas sheegay haddana in wariyaashii Soomaaliyeed ee dhibaatadii dalka ka jirtay ee shacabka Soomaaliyeed laga yaab in xafiiskiisa xitaa aysan gaaraynin laakiin shakhsiyaad gaar ah sooma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudayd waa hal martaaba oo kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah Dahab Pay hal taabasho oo kale